maxaa ku dhacaya jidhka aadamaha marka uu cabo dhiiga? maalmahan dambe waxaa aad u badanayay filimaanta dokumentariga ah ee ka sheekeynaya dadyow caba dhiiga. arrinkaas ayaa dadka qaar waxay ku beertay su'aal ah, qofka dhiiga caba ma sii noolaan karaa? waxaa la og yahay in dhiiga uu muhiim u yahay nolosha, laakiin xaqiiqooyinka cilmiga ah ee la hayo ayaa sheegaya in dhiiga la cabaa uu yahay sun. suntuna way kala sii awood weyn tahay, oo mar kasta oo aad dhiig fara badan cabto sunta ay jidhka ku sii badanayso. dhiigga waxaa ku xoogan maadada birta. jidhku dhibaato xoog leh ayuu la kulmayaa marka ay maadadan ka tan badato, waxaana ka dhasha cudur ugu dambeyn sababa inay keliyuhu fadhiistaan oo shaqada gabaan. dhammaan cilmi baarisadii la sameeyey ayaa sheegaya in dhibaatada ka dhalan karta in dhiigga la cabo ama la karsado ay aad u xoogan tahay. sababtuna waa jeermiska dhiigga la socda, iyadoo ay jirto borotiinka dhiigga ku jira uu yahay sun aad u xoogan, siiba marka uu dibadda u soo baxo, sidoo kalena dhibaato xoog leh u geysanaya jidhka. si aad u daawato wixii cusub iyo mawduucyo faa'iido badan leh, ku taxnaw oo taaba subscribe.